okay mar haddii digital businesska aad ku jirtid waxaa tahay freelancer ayaa tahay qof freelancer isaga ismaamulaya shirkad kuma maamulayso dowlad kuma maamulayso iskuul kuma maamulayo adiga ayaa la rabaa inaad ismaamushid oo aad yeelatid bartilmaameed ama target aad doonaysa inaad ka gaartid ganacsigan haddii aad bartilmaameed lahayn oo aadan vision cad lahayn hadhowti waad fashilmaysaa waad iska dhaafaysaa shaqadan aad bilowday soo marka waxa muhiima inaad leedahay vision aragti ah ee kuu muuqdo ee aad beegsanayso ama halbeeg inaad leedahay so okay waxaan dhahaynaa marka maadaama aan ku shaqaynayno digital marketing oo aan doonayno inaan noqono freelancer visionkeena ama halbeeg aan beegsanayno wuxuu yahay inaan gaarno financial freedom time freedom inaan ka gaarno xornimo waqti iyo xornimo dhaqaalo xornimo dhaqaale xornimo waqti maxaa la yidhahdaa waxaa la yidhahdaa maanta iskool ayaad dhigataa ama waxaad soo dhammaysay dugsiga sare jaamacada rabtaa inaad aadid ama waxbaad rabtaa inaad qabtid waayo jaamacaddu aadayso jaamacaddu waxaad u aadaysaa waxa weeye inay shahaado ku siiso shahaadadaas aad ku shaqo tagtid oo aad u shaqayso shirkad dowlad iyo wixii lamid ah maxaa tahay markaa shaqaalaad tahay freedom ma haysatid sababtoo ah 8 saacadood haddii kambaniga aad u shaqayso ama dowladda aad u shaqaysid 8 saacadood waa lagaa iibsanaa lacagaa lagu siinaa mushahar la dhaho mar kasta oo mushahar aad ku shaqaynaysid ma haysatid time freedom financial freedom haddii shaqada aad ka tagtid oo aad safar aadid ama aad ka maqnaatid lacag laguma siinayo maxaa yeele waqtigaada aad gadanaysa waad qaadatay so mar kasta ee qofka uu rabo inuu shahaado qaato ee uu cid u shaqeeyo qofka ma haysto financial freedom time freedom laakiin qofka haddii isaga waqtigu rabo uu shaqaysan karo waqtigu rabo uu seexan karo online markaad ka shaqaysanaysid waxay ku siinaysaa waqtigaa rabti inaad seexato tusaale kale haddii aad project company ka qaadatid projectgaas habeenkii aad samayn kartaa galabtii aad samayn kartaa subaxii aad samayn kartaa cidna kuguma xukumaysa inaad 8 saacadood u xaadirtid lacagtaadana waad ka qaadanaysaa haddii aad graphic design baratid oo lagu dhaho okay logo noo design garee flyera noo samee project waayo lacagtaada waa lagu siinayaa waqtigaa rabtaa samaynay haddaa rabtid maanta football aaday waa soo ciyaaray markaa soo ciyaartid guriga amaan computerka furanay waa samaynay waa u diray lacagtaadana waa ka qaadat maxaad haysataa marka xornimo waqti iyo xornimo dhaqaale dhaqaalena uu kusoo gelaa xornimona waad haysataa mar kastoo marka aad freelancer tahay ee online aad ku shaqaynaysid missionkaada ama ujeedkaada waxaa weeye inaad gaartid xornimo waqti iyo xornimo dhaqaale ee aadan cidna shaqaale u noqonin ee aad isu noqoto be your own boss adiga inaad boss isu noqoto ismaamushid markaad boss adiga isu noqonaysid maxaa lagaa rabaa waxaa lagaa rabaa inaad mission aad raacda aad leedahay because ma jiro markaad u shaqaynayso shaqaale aad tahay ama macallin aad tahay ama dowlad aad u shaqaynaysid ama shirkad aad u shaqaynaysid waxay kuu samaynaysaa qorshe ah 8 saacadood shaqaynaysid waxaad qabanaysa iyagaa ku siinaya laakiin markaad adiga be your own boss aad tahay freelancer aad tahay adiga ayaa isa siinaysa waqtigaa shaqaysanaysa marka waa inaad qorshe leedahay waqtiga uusan kaa khasaarin kan marka waxaa la yidhahdaa mission schedule your day plan and time management inaad leedahay schedule subaxii markaad aroorti kacdo ilaa habeenka markaad seexanayso waxaad qaban lahayd inay kugu qoran yihiin subax markaad soo kacdo cashiradaada inaad akhrisatid wixii cashiro aad leedahay inaad akhrisatid haddii meeting aad leedahay dadka inaad meeting la gashid inay kugu qoran tahay haddii aad rabtid inaad buug akhrisatid inay kugu qoran tahay haddii aad rabtid inaad kubad aada soo ciyaartid markaad soo ciyaartid markaad soo noqoto waxaad qaban lahayd haddii qof ehelka aad caawinaysid haddii reerka aad usoo adeegaysid macnaha schedule inaad leedahay day schedule inaad leedahay ama day plan that means waxay ku siinaysaa you have your own management time management aa leedahay qoraalkaada leedahay schedulekaada leedahay waqtiyada aad mitinada galaysaad leedahay everything waxaa kaa degaya marka stress waxaa kaa degaya inaad culays tirin waxaa kaa degaya inuu waqti badan kaa lumo waxaa kaa degaya inaad fiidiyooyo aan macno ku samaynayna iyo filimo iyo wax aanay dan kugu jirin inaad waqtigaada geliso ayaa yaraanaya tusaalo kale maanta haddaad guriga iska joogto shaqo aad haynin maanta o dhan waxaad scroll garaynaysaa snapchat tiktok facebook maxaa la yiri macnaha waxaasoo dhan waa micno darro waa waqti lum laakiin markaad schedule samaysid waqti samaysatid qoraal aad samaysatid schedulekaada aad raacdid naftaadan caafimaad baad helaysaa xornimo waqti xornimo dhaqaalena waad gaaraysaa visionka aad laheedna waad ku gaaraysaa so marka missionkii waa istaraatiijiyadii jaranjartii aad ku kori laheyd hadafkaada iyo meesha u socotid waa inaad daily balan leedahay marka qodobka saddexaad aan rabna inaad qof kasta oo freelancer bilaabayo ama noqonayo online business ama digital business bilaabaya waxaa laga rabaa inuu yahay have an entrepreneurship mindset inaad leedahay maskax kobcaysa oo la yidhaahdo growth mindset maskaxdeena iskama kobacdo haddii aad leedahay markaad weynaato maskaxdeed ku kobci doonto ma jirto maskax weynaan ku kobcayso maskaxda waxay ku kobacdaa adiga inaad jadwal u samayso wax aqrisid
xirfad cusub raadisid wax cusub baratid wax wanaagsan ee positive aad raadisid waxyaalaha negativeka aad iska laabtid tusaalo kale haddii maanta aad scroll aad samaysid oo telefoonkaada aad furtid malaayiin negative aad helaysaa gabar caynaysa wiil gabar caynaya laba isqaawan laba is haysato laba mushkilad isku ah laba qabiil ka sheekaynaysa kuwa siyaasad ka sheekaynaya oo wada negative ah laakiin haddii kuwaas aad stop garayso schedulekaada aad raacdid udemy aad gashid casharadaada aad akhrisatid aad gashid maxay ahayd canva programyadaada aad samaysid editing aad baratid youtube-ka aad ka raadisid waxa maanta aad doonaysa inaad baratid xirfad cusub business digitalka muxuu yahay freelanceha maxaa laga rabaa inaan xornimo waqti iyo xornimo dhaqaale gaara maxaa i gaarsiinaya imisa buugaan akhrin karaa maskaxda way kobcay marka maskaxdeena bini aadam ahaan waxay ka kooban tahay laba qayb qayb waxaa la yidhaahdaa conscious mind qaybna waxaa la yidhaahdaa subconscious mind conscious mindka muxuu yahay waa qayb qacda hore wax aragto qacda hore maanta haddaad aragtid gaari hadduu kaa hor imaado gaariga inuu guduudan yahay ayaa kuu sheegaya qaybtan hore ayaa kuu sheegayso gaariga inuu cad yahay ayaa kuu sheegaya qaybtan hore ayaa kuu sheegayso sawirka aad arkayso inuu madax yahay maskaxda gudaha fadhido caleen yaro calaa saaran tahay biyo lagu shubayo la waraabinaya ayaa kuu sheegaya qacda hore aragtida kuu sheegaysa qaybtaa marka maskaxdeena badanaa wax ma xasuusato qacda hore ayay garanaysaa laakiin qaybta subconscious mindka waxaa lagu shubaa wax kasto ee la rabo in la xasuusto ee in la xifdiyo la rabo subconscious mind la yidhaahdaa waa qaybta maskaxda ee hurudda ee wixii lagu shuba heesaa la yidhaahdaa marka maskaxda markaa qaybtaas hurudda aad ka kobcisid garaadkaada ayaa koray ogow dadka bini aadamka dunida ku nool labay u kala baxaan waxaa la yidhaahdaa dad leh growth mindset iyo dad leh fixed mindset dadka growth mindsetka leh waa dadka wax barto cilmi raadiyo waxbarashada iskuul ma aha iskuulka waxbarashadiisa waxaa la yidhaahdaa financial freedom kuma gaarsiinayso waa shaqaale aad cid u shaqaynayso laakiin markaad adiga wax isbartid xirfad cusub baratid youtube wax cusub ka raadisid maanta wax kordhisatid practical samaysid maanta cashir kala daawatid practical samaysid qof ku caawiya aad raadisid zoom aad soo gashid waqtigaada aad wax fiican gelisid maskaxdaada way kobcay waxaad yeelanaysaa maxay naf ogaal ayaad yeelanaysaa wax cusub ayaad baranaysaa wax kaa maqan ayaad baranaysaa waad farxaysaa soo qofkaas marka maxaa la yidhaahdaa growth mindset ayuu leeyahay maskaxdiisu way kobcaysaa maalin kasta xirfad cusuba baranaya maalin kasta wax cusuba baranaya oo waxtar leh oo positive ah qofka fixed mindset kale muxuu raadiyaa wuxuu raadiyaa conflict inuu maanta dhan qayliyo dadka ku qayliya caruurtiisa ku qayliya qofka la jooga ku qayliya maanta dhan calaacalo ani wax ma haysto ani wax ma soo gaarin maxa ma samayn kari kal ma yeeli kari xagga ma ka bixi karto maantoonan inuu iska daba laabto maxaa la yidhahdaa complain inuu ahaado qofkii inuu maantoo dhan halka qofka uu cilmi raadin lahaa arrintii ku timaado uu xal u raadin lahaa isaga iska daba laabto soo marka qofka hadduu noqonayo freelancer waa inuu la yimaado maskaxda growth mindset ee kobcaysa ee ma raba qofka inuu la yimaado fixed mindset inaad qof kasta wax ka baratid tiimo inaad yeelato asxaab inaad waxba isku meel aad u jeedaan ha ku mashquulin freelancer haddaa noqonaysid entrepreneur haddaa noqonaysid dadka aad hore ula joogi jirtay ee hoos kuu haan jiray ka wareegso dad kor aaday raadso 4 ilaa 5 qof oo kuu noqoto role model raadso onlinekaad ka helaysaa buugtoodaad helaysaa akhriso la jaanqaad waxaad tirahdaa caqabadihii ay mareen si aan uga gudbo waxa ay kaaga sheekeynaan si aad ogaatid buug akhri maskaxdaada way kobcee mar kastoo qofka maskaxdiisa ay kobacdo qofka wuxuu raadinayaa fursad cusub xirfad cusub qofka wuxuu la imaanayaa fikrado cusub idea cusub soo saaraya inuu business furan karo inuu isaga noqon kara qof ganacsi abuuri karo inuu dadku wax bari karo inuu maxay ahayd wax qaban karo inuu isbedel la imaan karo qofka maskaxdiisa markay kobacdo entrepreneurship mindset la imaanaya entrepreneurka waxaa la yidhaahdaa qofka fikradaha abuuro fikrad markay kusoo dhacday fikradda intuu qoro u bedelo ficil sida ganacsi oo kale ka sameey wax soo saar ka sameey kambaniyaal abuuri facebook ninka abuuri mark zuckerberg wiil dhalinyaro ahaa wuxuu dhiganaya dugsiga sare markuu dhameeyey ayuu abuuri maantana caalamka oo dhan ku wada jira balaayiin lacag ayuu sameeyaa waa fikir uu abuuri waa growth mindset adi maxaad abuuri kartaa maxaad samayn kartaa isbedel intee samayn kartaa maxaa qaban kartaa dadka maxaad ka bedeli kartaa hiigsigaada visionkaada muxuu yahay soo marka growth mindsetka lagu sheega waa qofka saa u fikiro oo maanta oo dhan 24 saac ku fikiro naftiisuu ku horumarin lahaa sababtoo markaad naftaada horumarisid wax kale dhan waa qaban kartaa laakiin naftaada markaa hoos u dhigtid waxba ma qaban karto soo maskaxdaada inaad kobcisid waa number 1 haddii aad rabtid inaad ku shaqaysid freelancer digital marketing oo aad gaartid time freedom and financial freedom qodobka afraad ee muhiimka ah qofka noqonayo freelancer waxa weeyaan never give up never fear the challenges caqabado badan ku soo wajahay
waxaadan weliga aadan samayna ayaad samaynaysaa tilaabo weliga aad qaadan ayaad qaadaysaa dhibaatooyin aad la kulmaysaa waxaa laga yaabaa wixii aad bilowda dhan inay eber kaa noqdaan meel cidla aad kasoo bilowdid waa inaad aad isdhiibin oo aad tidhaahdaa yes ma isdhiibayo ninka hadda buurta hoosteeda saaran wuxuu rabaa inuu buurta sidaa ku koro ilaa dhalada u saraysa buurta uu tago caqabadaha uu kala kulmaya hadduu soo dhacana waxaa waye naftiisu waynaya laakiin wuu ogyahay caqabadaha mana isdhiibaya ilaa uu kor tago wuuna tegaya sababtu maxay tahay maskaxdaada waxa aad ku shubta ayaa ku jira waxaan dhahnay qaybta subconscious mindka ee wax keediso wixii aad ku shubtay keedinaysaa haddaad tidhahdo waan gaari karaa waan samayn karaa waan agoodaa positive waay waad gaaraysaa wayna ku geynaysaa sababtoo ayadaa ku dhareef garaynaysa maskaxdaada haddaad tidhahda ma samayn karo ma yeeli karo ma gaari kartid mana yeeli kartid weligaana halkaasaad fadhinaysaa so markaad bilowdid marka inaad edit garayso canva aad gashid oo aad maxay ahayd flyera edit garayso oo aad samayso logo aad edit garayso wixina aad barit waxaa laga yaabaa inaad shaqo qofkiiba markiiba qof shaqo ku sii inaad weyso markiiba qof wixii kaa gatay inaad weyso maxaa yeele waad cusub tahay experience ma lihi dad badan kuma yaqaanaan waa isdhiibaysaa marka inaadan isdhiibin sababtoo qof walba ee maanta meesha u jooga meesha aniga maanta aan jooga ama dadka iga sarreeya joogaan way soo mareen mareen qofna garanaynay soo mareen mareen waxna garanaynay soo mareen oo wixii shaqo aan qabanoo dhan cidnaga qaadanaysa aysan jirin marka haddii aan isdhiibi lahaa 2017 soo bilaabay inaan waxyaalahan online-kan galo waxaan barto waxaan ku shaqeeyo la xarbiyo maanta inaan dad baro ma imaan lahayn haddaan isdhiibi lahaa marka caqabadaha iga hor imaadeen challenge badan iga hor imaadeen so marka qof kasta waxa uu bilaaba challenge ka hor imaanay caqabadaha ka hor imaanayso dadkii wixii aad ka filaysa ma helaysa adigoo wixii bartay laga yaabaa inaad shaqadii weysa maxaa yeele khibrad ma lihid laakiin way imaanay haddaad dadaasho maskaxdaada haddaad kobcisid positive haddaad u fikirtid adiga aad dadaashid waqtiga aadan iska luminin iska jawalkaada aad raacdid qof ku caawiya aad raadsatid oo mentor ah oo aad tirahdo waxaasa iga qaldamiya maxaa iga qaldan waxaasan samey intaasoo shaqaan dalbada ma helin okay qofka ku dhiirigelinaa mentorka ah maxaa imaanaya inaad ugu dambeyn gaartid heerka aad hiigsanaysay oo maantaas dad badan ay adig ku hoos yimaadaan dad badan aad tababartid malaayiin qof ah aad u qabatid maxay ay rabaan kali inaad adi la hadashid oo dhiirigeliso maanta ay rabaan dhalinyarada aa imaan doonta laakiin maanta steepka ka wada joogtaa waxyaalahan haddaa samaynin waa ku kashfaysaa waa hoosaad u dhacaysaa waxna ma qaban kartid so waa muhiim marka aad freelancer noqonaysid qodobadan markasta inaad niyadda ku haysid insha allah youtube-kan soo dhigayaa kadib waxaan rabaa inaad markasta ku celceshata ee aad dhegaysatid oo aad tidhaahdo okay visionkayga muxuu ahaa missionkayga muxuu ahaa visionkayga wuxuu ahaa inaan gaaro xornimo waqti iyo xornimo dhaqaalo okay missionkayga muxuu ahaa missionkayga wuxuu ahaa in aanan marna istaagin sidii aan ku gaari lahaa schedule daily inaan sameeyo balankayga inaan sameeyo qorshahii inaan sameeyo waqtiga inaan ka faa'iidaysto inaan aniga nafteyda jim aado oon waqti qaato ama sports ka qayb galo maalintii 1 saac ama 2 saac soo ciyaara anuu fresh aan shaqadayda kusoo laabto maskaxdayda ee furnaato buugag aan dalbadan akhriyo iyo sidoo kale inaan lahaado growth mindset oo ah entrepreneurship inaan noqdo inaad ku xisaabtantid entrepreneurship inaad noqoto qof fikrada abuuro fikradahaasi oo malaayiin dad ah ay ka faa'iidaystaan amazon ninka iska leh waa fikrad ayuu abuur waa entrepreneur isaga adduunka meeshuu rabo aada amazonna ilbiriqsi kasta daqiiqad second kasto waxaa laga gadaa ugu yaraan maxay ahayd 30,000 ilaa 40,000 oo dollar ayaa second kasto alaabadeeda laga iibsadaa taas maxaa waay service u keena servicekaas adduunka oo dhan aa isticmaalay adigana waa keeni kartaa maskax yar aad haysta oo dhalinyaro ah oo fircoon cilmiga laguu sheegaya adaa isbari kara ma aha kan iskoolka uu ku baraayo iskoolka wuxuu ku barayaa nidaamkii waxbarasho saad u raaci lahayd ee aad u heli lahayd meesha aad rabtid laakiin adiga markaad wax isbartid oo maskaxda wixii aad fahantid oo aad wax akhrisatid oo aad buuga akhrisatid oo wax dantaada aad raadisid oo maskaxdaada aad kobcisid cilmi adiga aad jeceshahay ee kaa buuxa ayaad helaysaa so entrepreneur noqonaysaa marka mutacalinka lagu sheegayo aqoonyahanka lagu sheegayo waa qofka asaga wax isbaro ee maalin kasta wax cusub barto waxbarashada iskool ma aha maalin kasta daily waa inaad xirfad cusub baratid daily waa inaad wax cusub la timaadid daily waa inaad fikir cusub aad falanqayn kartid oo aad soo saari kartid oo aad u bedeli kartid fikir wax ku ool ah isla markaana waa inaad iska ilaalisid cabsida ha isdhiibin weligaa challenge kasta kusoo wajaha waxaad tidhahdaa yes waa ka gudbaya waa inaan xal u raadiya fariiso falanqee qoraal u samey waxaad tidhahdaa maxaa xal ah maxaa xal haddii aan kashfmay haddii lacagta iga khasaartay haddii wixii inta aan ka shaqaynaa socon waayeen maxaa xal ah next step then xal kala helaysaa